السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa lagu magacaabaa ninkan John Willard Marriott wuxuu shaqadiisa ka bilaabay tuujinta liinta iyo ka samaynta qudaarta sharaab macaan oo ay dadka cabaya aad u xiiseeyaan. Aaga uu ka shaqeeyo waa Capitol Hill, Washington oo ah xaafad la degan yahay oo taariikhi ah, isla markaana ku yaalaan hoteelo. asagana mid ka mid ah hoteeladaas ayuu ku hor sameeyaa sharaab ama cabitaan macaan. waxaa imaada hoteeladaasi dad meelo badan oo kala duwan ka yimid. John wuxuu dadkaasi ku qaabilaa weji furan, dhoola caddayn iyo sharaab nadiif ah oo macaan. dhanka kale John wuxuu la socdaa in hoteelada yihiin kuwa aan nadiif ahayn oo wasakh leh. cuntada ay siiyaan dadka degan hoteeladoodan in ay tahay cunto qabow ah ama bariday, sharaab macaan ah sheegin. intaa waxaa uu sii dheer oo John ogsoon yahay in hoteelada ka jirto maamul xumo, isla markaana ay dabooli karin baahida martida lacagta wadata ee dadka faa'iideysta lacagtaasi. John wuxuu sii watay shaqadiisii casiir tuujinta iyo lacag aruursi. dhanka kale John ayaa isha ku hayay yoolkiisa oo ah inuu cunto wanaagsan siiyo martida ku dayacan hoteelada, isla markaana haysata lacagta. dabcan John wuxuu furay maqaayad yar oo bixisa cunto kulul isla markaana leh dhadhan heer sare ah. isla markiiba waxaa ku soo jabay dadkii ku rafaadsanay hoteelada, waayo John waxaa hore loogu bartay sharaab heer sare ah. haddana markii uu ku daray maqaayadda lana arkay cuntadiisa macaan, waa la jeclaystay. ma noqonin John nin cunaha dhididka shaqaalihiisa ee wuxuu ahaa mas-uul. asaga iyo shaqaalihiisa si siman ay u qaybsan jireen faa'iidada, wuxuuna dhihi jiray farxadda iyo raallahaanshaha shaqaalaha ayaa lagu gaaraa guul weyn iyo faa'iido badan. habdhaqankiisa maamuleed ayay jeclaysteen shaqaalo badan in ay kula shaqaystaan. markii uu John guul weyn ka gaaray dhanka maqaayadda, isla markaana kor u kacay xiriirka ka dhexeeya asaga iyo shaqaalihiisa, ayuu haddana la yimid hindiso kale oo ah inuu furo hotel nadiif ah oo maamulkiisana wanaagsan yahay, dhanka kalena bixiyo cunto heer sare ah. wuxuuna aaminsanay John inuu ka guuleysan doono hoteelada kale, waayo John wuxuu og yahay in hoteelada kale aysan waxba haynin. wuxuu go'aansaday John in si tijaabo ah oo u furo hotel, tijaabadaas oo socon doonto muddo 3 bil ah. hadafkiisuna yahay inuu arko isla markaana qorto aaraada, hindisooyinka iyo cabashada dadka martida ah ee imaanaya hotelkiisa. wuxuu bilaabay inuu daraaseeyo hindisooyinka iyo aaraada dadweynaha imaanaya hotelka. 3 bil kadibna wuxuu ku dhawaaqay in hotelkiisa si rasmi ah u furan yahay. John muddo yar kadib wuxuu gaaray guulo waaweyn. hadda John 5 qaaradood wuxuu ku leeyahay hoteelo waaweyn oo qurux badan, isla markaana caan ah, dadka martida ahna aad u xiiseeyaan degidooda. gabagabadii John wuxuu ahaa nin ka faa'iideystay khaladaadka iyo maamul xumada hoteelada iyo maqaayadaha kale, si tartiib ahna guul ku gaaray.